السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضيدي dadka kale markaa ku xiran ba channelkeena waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa cudurka kasta diagnosis-kiisa iyo markaa ama condition kastaba waxyaalo lagu diagnose karayo iyo markaa treatment-iga ama management-iga markaa ku habboon markaa aad iyo aad bay u fara badnaan doontaa markaa maanta ayaan bilaabi doonaa lesson-keena koowaad baan ka qaadi doonaa haddii tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato channelkeena subscribe saar siina share garee muuqaalka sidoo dad badan u gaaro casharka maanta markaa qaadan doona ee ugu soo horeeya wax weeye waa shock weeye shock wax weeye waa a medical emergency in which the organ and tissue of the body are not receiving an adequate flow of blood waxa weeye horta waa xaalad medical emergency taas oo markaa organiska iyo nudayaashu ay markaa body are not receiving markaa ay jirku aanu helaynin an adequate flow of blood dhiig markaa ku filan baanu markaa helaynin ya lagu qeexaa noocyada loo qaybiyo waxa la yiraahdaa ischemic shock hadduu qofku ku dhaco waxaa markaa ku dhacaya pumping failure qofkii inuu dhiigii bam gareeyo wadnihii ayuu ku failure garoobaya hypothalamic shockuna waa intravascular volume loss qof fluidskii meesha ayaa ka baxaya obstructive shockna waxa la yiraahdaa waa inadequate blood oxygenation markuu dhiigii oxygen ku filan waayo ayaa markaa waxa dhacaya obstructive shock baa dhacaya qodobkan kale waxa weeye isaguna ama noocan kale waxa weeye nooca ugu dambeeya afraad distributive shock baa la yiraahdaa distributive shock waa medical emergency waa xaalad emergency taasoo weeriyo bari jirkaagu cannot get aanu helin enough ku filan blood ku filan to your heart aanu markaa wadnihii oo kale dhiig ku filan baa wadnihii baan helayn waxaan helayn oo kale brain maskaxdii baan helayn waxa kale aan helayn kidneys kiliyihii baan helayn septic shock waa the most common form waa formka ugu caansan ee distributive shock marka la joogo qaabka formka ugu caansan waa septic shock dhimashadiisu horta isaga way badan tahay way treaterka around 30% ayaa ka badbaada qofka hadduu septic shock qaado 30% ayaa treaterka noqda untreated probably waxa si sax ah caadi ahaanta waxaan daaweysmin oo markaa u dhintana 80% adigu ku dhawaad 80% other causes kale keeni kara distributive shock waxa kamid ah systemic inflammatory response syndrome due to sababtay non-infectious disease inflammatory response syndrome calaamado markaa soo tagtago xanuuna kaasoo ay keeni karaan non-infectious inflammatory condition markaa waxaan infection keenin oo ay kamid yihiin baaniska gubashada iyo pancreatiska oo markaa ganaciina soo gaaro inflammation soo gaaro toxic shock oo syndrome ina dhacdo TSS anaphylaxis in qofkii reaction ku yimaado oo anaphylaxis ku dhacdo anaphylactic shock ku dhaco qofkii iyadoo reactions dawadii oo kale uu markaa qofkii reaction ka qaadayo iyo toxinkii ay kamid yihiin insecticides cayayaanka waxaas kamid yihiin hadaba si guud maxaa sababa shock waxaa sababa severe allergic reaction qofkii allergic reaction aad u daran oo qofkii markaa ku yimaada blood loss baa sababta waxa kale oo dhiigii qofkii ka baxa waxa kale oo sababa heart failure qofka hadduu wadnihiisa aanu shaqadii uu gabo oo kale waxa ku imaanaya markaa shock baa ku imaanaya blood infection hadduu jirana markaa shock baa imaanaya waxa kale oo shock keeni kara dehydration meesha hadduu yimaado qofkii fuuqbax oo fluids badan jirkiisa ka baxo shockuna markaa uu imaanaya uu sababi karaa poison oo kale sumo oo kale uu sababi karaa paniska gubashada kale way keentaa waayo gubashadu waxa jirkiisa dareer ka baxaya markaa way keenaysaa calaamadaha lagu garto si guud shock lagu garto cool qofkii qabow ayuu dareemayaa clammy skin rapid pulse buu qofkii yeelanayaa pulse baa degdegaya rapid breathing buu naftiisa baa degdegaysa qofkii naasiya vomiting laba iyo matag buu la imaanayaa weakness buu qofkii noqonayaa ma fatigue qof daalan ama qof daciif oo kale ayuu qofkii noqonayaa hadaba treatmentiga iyo managementigu hadaba si guud in all case-ka dhamaan maxay kaaga baahan si emergency orto emergency way baahan warto xaaladda hadda shock aragtaba waa emergency way immediate attention to the patient waa in si dhaqso ah qofka horta wax loogu qabtaa waa talabaad oxygen therapy baa markaa bukaha lagu caawiyaa haddii bukuhu uu markaa la dhacayo respiratory distress waxa la yiraahdo
waxaa kaloo loo sameeyaa intensive monitoring ayaa la sameeyaa oo monitoring marka ayaa qofka lagu sameynayaa sida waxa la eegayaa consciousness-kiisii balsihiisii BB-giisii CRT-ga waxa la dhahaa waa cardio recitational therapy baa la dhahdaa qofkii marka waxa la eegayaa inta garaaciisu inta heartbeat-kiisu intuu yahay oo kale ayuu la qalab lagu eego weeyo marka respiratory rate-ka ayaa si hawarliya saacad kastaba waxa marka la check-gareynayaa urinary output-ka adoo qofkii marka gashanaya urinary catheter gelinaya saad markaaba u eegto output-kii marka kaadu marka qofka jirkiisa ka soo baxday management inaad marka maamusho according to the cause inaad manage gareyso marka wixii sababay shoga wixii sababay aad marka manage gareynaysaa tusaale maxaa shoga keeni kara waa taynoo soo socota hemorrhage oo kale dhiig-bixi hadduu yimaado waa inaad marka hore controlshaa bleeding-kii waa kow priority-ga waa inaad siisaa sidii qofkii restore vascular volume-kii si aad dib ugu soo celinayd sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan qofkii waxaad gashanaysaa laba peripheral ay filayn baad gashanaysaa qofkii markiiba laba kaynool ayaad markiiba qofka ku xidhaysaa waxaad markaa qofka aad siinaysaa ringer lactin ayaad siinaysaa ringer baad siinaysaa adoo markaa 3 jeerba ku celcelinaya una eegaya markaa losskii ka lumay intii volume ka luntay baad markaa u eegaysaa ka bacdisaas markaa ugu celcelinaysaa haddaba ringer lactin-ka iyo qiyaasaha markaa qofka laga siinayo ciyaalka laga siiyo ciyaalku haddii 2 bilood ka yar yihiin markaa ma 2 bilood yihiinba waxaad markaa siinaysaa 10 ml per kg-gooda adoo ku dhufanaya of 15 minutes kastaba waanaad ku celcelinaysaa 3 jeer kastaba haddii markaa sign of shaggi hadduu weli persist yahay ciyaalka haddaba 2 bilood ilaa 9 bilood jirana 20 ml baad siinaysaa adigoo markaa kg-ga ama weight-kooda ugu dhufanaya of 15 minutes baad isagana 15 daqiiqo kastaba waad markaa siinaysaa adoo markaa ugu celcelinaya 3 times if a sign of shock persists intuu ka jiro waad ku celinaysaa shock ilaa uu ka jiro childrenka haddaba 5 sano ah ama ka weyn iyo adultiga 30 mg baad ka siinaysaa per kg-gooda of 30 minutes 30 daqiiqo kastaba waad ku celcelinaysaa ilaa iyo inta sign aad ka arkaysid of shock persist ilaa shock intuu ka joogo dhanba wasaasaad ugu wadaysaa closely monitor baa lagu sameynaya the patient bukayaasha be careful ka taxadar to avoid fluid inaad overload dareero fara badan aad qofkii siiso bukayaasha inaad ka taxadar kuweeba laga taxadaraya waa kuwan soo socda in yoga children caruurta yaryar iyo elderly patient bukayaasha waaweyn dadka adultiga ee olderka aad u ka waaweyn oo kale waad ka taxadaraysa severe anaphylactic reaction haddii jirtana waxaad determine gareynaysaa horta causal agent-kii meesha ayaad markaa dhigtay go'aaminaysa bal wixii keenay wixii qofkan ku keenay waxaan allergiga wixii ku keenay baad markaa eegaysaa meeshaad markaa remove meeshaad ka saaraysaa qofkii markaa waxaad administer qof markaa waxaad u qoraysaa epinephrine ama adrenaline waa la dhahaa qiyaasaha haddaba loo ogolyahay ciyaalka in laga siiyo ciyaalka horta under care 6 sano ka yar waxaa loo ogolyahay in laga siiyo 0.15 ml childrenka from 6 ilaa 12 sano ahna 0.3 ml baa loo ogolyahay caruurta haddaba 12 sano ka weyn iyo adultigaba waxaa loo ogolyahay 0.5 inaad ka siiso 0.5 ml at the same time administered rapidly ringer xilliga marka aad dawada epinephrine-ka aad siinayso qiyaastii loogu talagalay haddaan kaaga soo sheekeynaya aad u siinayso xilliga waxaad kale aad u raacinaysaa si dhaqsa ringer lactin-kii 1 liter in adult 20 ml per kg in children ciyaalkiina waa 20 ml xagga 1 liter ay ka tahay oo laba faleenba markaa ah ayaad markaa dadka waaweynaan ay ka tahay to be repeated waad ku celcelinaysaa if necessary haddii loo baahdo markasta ku celcelinaysid waayo qofka hadduu fluidka hadduu jirkiisa ku jiro oo fluid ku yahay iskaga celcelinaysid waayo khatar baad ku sababaysaa if there is no clinical improvement haddii wax improvement laga waayo repeat ku celi I am epinephrine adoo markaa I am ka siinaya epinephrine every 5 to 15 minutes 5 ilaa 15 daqiiqo kastaba waad ku celcelinaysaa ilaa iyo markaa aad ka aragto wax improvement aad ka aragto thank you aad baad mahadsantihiin lesson-keena halkaas koobaad halkaas inoogu ogyahay
every week kastaba waxaan qaadan doonaa hal lesson oo markaa diagnosis and treatment ciwaankan u bixinay insha Allah wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.